على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات. wakhtigu wuxuu soo gurguurtaba waxaa la gaaray xilligii laga bixi lahay cariiriga maka loona bixi lahaa dowladnimada madiina. saxaabadu waxay qaateen in ku filan oo tarbiyo ah. imtixaankii adkaana waa ay ka soo gudbeen. jacfar wuxuu aaday dhulka xabashida asagoo dalkiisa ka doorbiday diinta. bilaalna wuxuu sanka dhulka ugu jiiday umaya binu qalaf. xamsana wuxuu dharbaaxsho kulul ku dhuftay abaajahal. calina wuxuu naftiisa ku furanayaa suubanaha sala allahu calayhi wasallam. abuubakarna wuxuu hantidiisa ku xoraynayaa dadkii muslimiinta ee addoommaha ahaa. ugu dambayntiina wuxuu la soo hijroonayaa saaxiibkiisii ou jeclaay oo ah rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayagoo soo gaaray magaalada madiina, halkaas oo ay ka bilaabatay marxalad cusub oo si abadi ah u beddeli doonta muuqaalka guud ee adduunka. inkastoo magaalada maka ay jeclaayeen muslimiinta, haddana kuma kedin karin inay sii dhex joogaan maadaama uu isaga tegey qofkii ay jeclaayeen. qofna muxuu samayn karaa haddii aanu haysan qofkii uu jeclaa? waxay bilaabeen saxaabadu inay mid mid uga baxaan magaalada maka iyadoo quraysh aanay ka warhaynin. kanina waa saxaabiga jaliilka ah ee suhayb. wuxuu ka soo dhaqaaqay maka asagoo ku wajahan daarta hijrada iyo iimaanka ee madiina. waxaase socdaalkiisa ka war helay reer quraysh, waxaana ka soo dababaxay rag ka mida reer quraysh, kuwaas oo hadafkoodu yahay inay suhayb ku celiyaan magaalada maka. markii ay soo gaareen ayuuna suhayb ku yidhi sida tan: reer quraysh, waxaad og tihiin in aan ahay kan idinkugu liifka badan. wallaahi ima qabanaysaan ilaa aan idinku liifo leeb kasta oo aan haysto, markaasna aan idinku garaaco seefta intaba ay gacantayda ku jirto. reer quraysh ayaa suhayb ku yidhi: waxaad noo timid adiga oo faramaran oo faqiir ah, maantana waxaad doonaysaa inaad naga tagto adiga iyo hantidaadaba. wallaahi ma dhacayso arrinkaas. wuxuu ku yidhi suhayb: bal ka warrama haddii aan idinkaga tago hantidayda, faraha ma iga qaadaysaan? haa bay ku jawaabeen. markaas buu u tilmaamay halkii uu ku qariyey hantidiisa, ayaguna faraha ayay ka qaadeen. nabiga sala allahu calayhi wasallam waxaa soo gaarayay tabintoos ah oo ku aadan dhacdada uu la kulmay suhayb, waxaana looga sheekeeyey waxyi samaawi ah. allahna wuxuu yidhi: markii uu suhayb soo gaaray madiina, waxaa soo dhoweeyey suubanaha sala allahu calayhi wasallam oo wejigiisa la moodo gobol ka mida dayaxa. wuxuuna ku yidhi: wuu guulaystay beecii abaayaxyow, wuu guulaystay beecii abaayaxyow, wuu guulaystay beecii abaayaxyow. maxaa yeelay allaah dartii ayaad uga soo tagtay. waxaad ogaataa macsiyo kasta ood allaah dartii uga tagtay adiga oo awooda inaad samayso in beecaasi uu liibaanay. waxaad ogaataa argoose kasta oo aad samay karto balse aad allaah dartii uga tagtay in beecaas uu liibaanay. waxaad ogaataa in qof aad dayn ku lahayd markii uu awoodi waayey inuu iska gudo, haddii aad u cafiso oo aad asturto halkii aad dacwayn lahayd oo aad caabayn lahayd in beecaaga uu liibaanay. hanti walba oo aad gacanta u gelisay ruux maskiin ah, waxaad ogaataa in hantidaas aad u dhiibatay allah subxaanahu wa tacaala, beecaasna uu liibaanay. mar kasta oo aad caro dareento kadibna aad allaah dartii u qariso carada, qofkiina aad iska cafiso, waxaad ogaataa in beecaaga uu liibaanay. على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات.